بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal kusoo dhawaada qaybtii koowaad ee sheekadii la magac baxday ismaandhaaf aduun dhageystayaal sheekada qaybteeda koowaad waa hordhaca sheekadan waxaa qoray halabuur Cabdulqaadir Axmed Shaafici waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdiqafaar Habbi qaybta koowaadna waxay inoogu bilaabanaysaa sida tan waxay ahayd habeen ay soo galaysay axad gooreysada dadajisa waqtiga degdega badani waxay si wareersan habeenkaasi u sheegaysay 8:30 daqiiqo ee fiidnimo sanadkuna wuxuu si halmaansan u sheegayay dhamaadkii bishii Luulyo ee 1997 jawiga hawada ee la dugaansanayay habeenkaasi wuxuu ahaa jawi degan oo hareynayay neecaw qabow oo ka baabi'inayay nafta walaacsan walbahaar iyo diifta nafta aan walaacsanayn tusinayay mustaqbalka fog rafaad iyo naxdinba inkasta oo jawiyadii hore ee kala gadisnaa ee magaalada dugsanaysay habeenadii hore ay ahaayeen jabiyo aan farxad gelinaynin bani aadamka iyadoo ay xaqiiqo ahayd in dhammaanba cimilada caalamka ay ku timid isbedel wareersanaa oo la afgaran lahaa isbedelkaas cimilada oo si guracan loogu magacaabay El Niño khubarada ku takhasusay saadaalinta cimilooyinka saadaashan ee meelaha fogfog ee ka soo goosha waxay si naxdin leh u cadeeyeen sanadkaasi in El Niño ay ka soo gurguuratay dhinacii shakiga una soo kicitantay dhinacii hubaasha sanadahan soo socdana ay soo bandhigi doonto ciyaaro kulul oo ismaandhaafsan oo ay isaga hor imaan doonaan barwaaqo la gaari laayahay iyo abaar aanan dhammaanaynin isla markaana kala baxa ciyaartan ismaandhaafsan ay aad iyo aad u adkaan doonto magaalada Addis Ababa waxay caan ku ahayd cimilo ay mar walba garab taagnaayeen qabow iyo roob dhagaxyaale badan balse waxay sanadihii dambe isu bedeshay cimilo ay wehliyaan kulayl iyo roob la'aan xad dhaaf ah haddaba cimiladaasi isbedeshay waxay ku kala dhalisay labadii kooxood ee magaalada deganaa dood adag oo aad isu maandhaafsanayd iyada oo labadaasi kooxood uu ka dhaxeeyo wakhti walba tartan aysan caddayn ujeedadiisu tartankaas oo uu sirwade ka yahay waayaha adduunka isagoo markaasi xirta shaati xirashadiisu isbedel badan tahay kooxda koowaad oo ahayd kooxda uu sirwaduhu ka hiiliyey isla markaana uu si qarsoodi ah ugu yeeri jiray jeeb maranayaasha dadka saboolka ah kuna dayacay gidaarada magaalada waxay si farxad leh u lahaayeen waxaa mahad leh ilaahana siiyey kulaylkan ee naga dulqaaday qabowgii nagu dili gaaray gidaaradan aan ku dayacannahay iyaga oo si diiran u seexanayay habeenadaasi kooxda kale oo ahayd kooxdii uu sirwaduhu u hiiliyey isla markaana marka uu yeerayo si caad oo nacamleyn badan uu ugu dhawaaqi jiray jeebkuuslayaasha taajiriinta kuwaasi oo uu jeebkoodu kuusnaa gaarsiiyey darajooyinka macaanka dhiigkarka iyo camalxumada waxay si xansi ah oo canaan badan u lahaayeen Soomaalidan kulul ee qaxa ah ee soo gubay dalkoodii hooyo ayaa naga kululaysay magaalada oo walibana doonaya in ay naga gubaan magaaladayada iyaga oo markaasi dhinac isaga tiiriyay bustayaashii abuusuufka ahaa ee ay isku dadi jireen habeenada qaarkood kana xun shaqo gabkii ku yimid bustayaashaas iyo sababta ay la shaqayn weyday lacagtii gashay bustooyinkaas arnin lacag lahaa yaa xisaabtamay oo nacab in la weydiisto lacag oo aad u jecel in laga sheekeeyo badnida lacagtiisa iyada oo la tixraacayo oraahda kulayl ee lagu sheegay Soomaalida waxaa isweydiin leh Soomaalidu ma leeyihiin kulaylkaas lagu sheegayo ee meel walba oo ay tagaan lagu xanto khubarada u xilsaaran arrimaha Afrika ayaa waxay sanadkaasi sheegeen in Soomaalidu ay gubeen dharkii ay xirnaayeen sanadahaas sidaasna ay ugu wacan tahay kulaylka lagu xanto maxaa yeelay haddii qofku uu gubo dharka uu xiran yahay waxaa huran qofkaasi in uu jirkiisu gubto sida oo kale khubarada u xeel dheer hal fikirka maskaxda waxay sanadahaasi sheegeen in maskaxda Soomaaligu hal abuurkeedu uu keeni karo faa'iido balse uu dhinac cararayo faa'iidadaasi khasaare badan oo ay ka fiirsasho la'aan iyo cilmi la'aan u geyso dhammaanba hoteelada magaalada Addis Ababa waxay ahaayeen habeenkaasi kuwa aad u camiran oo wada ciidayay guud ahaan magaalada waxaa ka baxayay astaamo muujinayay inay magaaladu ciidaysay iyada oo isugu yimaadeen magaalada laba ciidood oo wada ciidayay labadaasi ciidood waxay kala ahaayeen ciid sanadeed iyo
habeenkii ciid carafo waxaa hoteelada ka iftiimaya nalal lahaa iftiin biriq iyo iftiinada madow ee degan ee la isugu gaabgaabsado marka la isa shukaansixadayo arwiil iyo gabar yaa isa shukaansaday oo aad iyo aad isu jeclaa waxaa ka soo jeeday dhammaanba gudaha hoteelada dhalin luqun dheerdheereed iyo dhalin luqun gaagaabnayd dhalintaasi waxay isugu jireen gabdho iyo wiilal kalahaad macaal iskuhaad ahaa tiro ahaan dhalintaasi waxaa hogaaminayay gabdhaha hoteeladii laga soo camirnaa habeenkaasi waxaa ka mid ahaa ras blue iyo nail hotel oo ay ka tumaysay kooxda durdur ee Addis Ababa waxaa hoteelkaasi ka camirnaa dhalin Soomaaliyeed oo isugu duubduubnaa 5 iyo 3 oo isugu jiray wiilal iyo gabdho isla haystay iyo wiilal iyo gabdho aan isla haysan iyo ciroolayaal dhowr qof ah oo Soomaali ah wiilashu intooda badani waxay ku labisnaayeen labis noociisu ahaa culaysi shaydaan ku xaqsay iyo maxaa ku dhiibay gabdhaha intooda badani waxay ku labisnaayeen labis noociisu ahaa ee fududee dhalintaasi badankoodu waxaa ka muuqday wajiyadooda walbahaar qudhiisu walbahaarsanaa iyaga oo markaasi ka walbahaarsanaa natiijadii ay ka heleen dhigoodii baaritaanka ku raagay muddo sannado ahayd ee inta badani ay wada yaab sugayeen dhalintaasi waxaa ka mid ahayd ayaan waxay fadhiday kursigii ugu horreeyey ee kuraastii ag taalay albaabka laga soo galo ee hoteelka waxay ku labisnayd shaati gacmo dheer iyo goono dheer midabkeedu ahaa basali garbasaar iyo kaba degan oo midabkoodu ahaa madow xigeen waxay luqunta ku xirnayd kuul qadiimi ah oo ka samaysnayd cunaabi balse lama arkaynin kuushaasi oo waxaa qarinaysay edebti quruxsanayd ee ay ayaan ku tarbiyaysnayd kuushaasi oo ahayd kuushii uu aabbaheed u iibiyey hooyadeed goortii uu guursanayay waxay ahayd gabar aad ugu dhaqanta dhaqankeeda suuban iyo diinteeda macaan ee ay ka soo jeeday sida oo kale ayaan waxay ahayd gabar qurux iyo dabeecad wanaagsan ilaahay u dhammeeyey haddii ay indhahaagu qaban lahaayeen indhaha ayaan adiga oo wiil ah oo shukaansi gaadgaad ku jira si dhaqso ah ayaa dib eegmo ugu noqon lahayd labiskaaga markaas ayaad sixi lahayd wixii ka dhinnaa labiskaaga adiga oo aanan is ogayn kadibna garbahaaga ayaa iyagu oo aanan iskala ogayn midba gooni u gundhismi lahaa afkaagana waxaa ka soo bixi lahaa hadal aadan garanaynin waxa uu soo watay balse doonayay keliya inuu farax geliyo gabadhaasi quruxda badan ay indhahaagu qabteen waxay ahayd gabar gashaanti ah oo sannadkaasi uun 17 jirsatay dherer iyo joog dumarna u buuxday midabkeedu wuxuu ahaa maarin madow xigeen ah waxay lahayd indho waaweyn oo iska daba qurux wareegaya marka ay gudanayaan shaqadooda eegmo aadna isdhihi marka ay marku eegaan may weligaaba ku eegaan bishimo isku wareegsan oo aad isdhihi marka aad aragto yaa isku shumis ku goosta ilko siman oo cadcad dhaban labeen saaran tahay timo dheerdheer oo dhabarka hoos u dhaafay iyo xubno kala baxsan oo jalaqsan isku soo wada duuduubo muuqaalkeeda wuxuu ahaa muuqaal qurux dhammaystiran oo ay qudheedu dareensanayd quruxdeedu islamarkaana ay in badan ku xamdiyi jirtay mar walba oo ay iska daawato muraayad ama la ammaano quruxdeeda abuuraha sancada badan ee u abuuray quruxdaasi ee ay iyadu qudheedu u bogtay waxaa quruxdaasi u dheereed dabeecad aan marnaba laga caajisaynin iyo edeb aad u qurux edebsanayd yaa qurux qosol qajilay oo tii edebaheed xishood fadhiisisay waxaa iyadu iska caddayd oo aan markhaati doon ahayn in habeenkaasi ay ayaan soo eegayeen indho aad u tiro badan oo isdaba xadayay eegmadii ay wada eegayeen ayaan sida oo kale ayaa waxay ka mid ahayd gabdhihii aadka u tirada yaraa ee Soomaaliyeed ee loo bogay habdhaqankooda iyo habsami socodkooda ee ku noolaa magaalada Addis Ababa ee aadka loogu taamayay helitaankooda iyo guri lagalkooda wiil walba oo waxgarad ahi wuxuu ku taamayay sidii uu mar gacanta ugu dhigi lahaayaan oo uu u guursan lahaa waxay ka mid ahayd gabdhihii aadka u tirada yaraa ee ay ishu qabanaysay ee dhiigoodu xambaarsanaa fitamiin 9 waxay ahayd gabar ka caroota isticmaalada kiimikooyinka sida khasaaraha badan u gumaada maqaarka qurxoon ee ku dahaaran jirka gabdhaha Soomaaliyeed sidaas oo kale
ayaan waxay ahayd kursi musharaxnimo oo la wada doonayay. waxa u sharaxnaa musharaxyo badan kuwaasi oo u kala loolamayay siyaabo kala gadisnaa oo iswada burinayay loolankooda tartan adagna ku wada jiray. musharax waliba waxa uu kaashanayay garaadkiisa inta rabbigii ku manaystay. musharaxyadaasi waxa ay kala isticmaalayeen qodobo kala ahaa lacagay xamaalo iska daba soco aakhirka iyada ayaa iskeeni doonto iyo mudana jacayl soo dhufo gabadhaas qurux riyaaqsatay. waxaa habeenkaasi si bilaa qarsoodi ahayd u horfadhiyey ayaan musharaxii ugu dhibco horeeyey musharaxyadii u wada loolamayay iyada. musharaxaasi oo adeegsanayay qodob ay aad ugu riyaaqday oo ahaa mudana jacayl soo dhufo gabadhaasi qurux riyaaqsatay waxa uu ahaa ayaanle waxa uu ahaa maareeye ku-xigeenka shirkadda Somali Export Construction. shirkadda Soomaal ayaanle waxa uu ahaa wiil guurdoon ah oo da'diisu ay sanadkaasi 23 jirsaday. qurux aanan la soo koobi karinna rabbi ku manaystay. waxa uu ahaa wiil itaal xoogan leh. midabkiisu waxa uu ahaa maariin casaan xigeen ah. wuxuu lahaa indho waaweyn, sandheer, bishimo dhuubdhuuban iyo timo jilicsan. kale uu ku xiriirsanaa edeb la tartamaysay edebtii ayaan. wuxuu habeenkaasi ku labisnaa shaati midabkiisu cadda oo lahaa liidamo madow, surwaal iyo kabo. ayaanle waxa ay isbarteen horaantii bishii Luulyo ee sanadkii 1996 iyagoo markaasi ku kulmay Hilton Hotel oo habeenkaasi lagu qabanayay aroos shidan. sheekadii dhex martay markii hore waxay ku bilaabatay isgaadgaad shukaansi oo watay eegmo jacayl. kadib waxa ay u gudubtay hadal goosgoos tuurmo jacayl ahaa. kadib waxa ay u gudubtay telefoon ku sheekaysi isdaba taxnaa duhur walba. kadib waxay u gudubtay balan jacayl ku sheekaysi hotel. kadib waxay u gudubtay sheeko xambaarsaneed taxano jacayl oo aad iyo aad isu jecelaa. ugu dambayntii sheekadii jacayl ee ka dhaxaysay ayaan iyo ayaanle waxay isugu soo biyashubatay jacayl xanuunsanaa oo aan sinaba ku kala maarmi karin. jacaylkaasi oo la magac baxay jacaylkii xanuunsanaa. dhegaystayaal intaasi haynoo joogto qaybtii koowaad ee sheekadii la magac baxday ismaandhaaf adduun. qaybta xigta waxaad dhegaysan doontaan maalinka berri ah hadduu rabbi raalli ka noqdo. sheekadan waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqafaar habbi ah. inta aan ku kulmi doono sheekada xigta waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.